السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي في الله ولكن أحمد حسن عبد الرحمن إيوه ترسع عصب درسيا إن شاء الله ما أنتم حكوا سابسيني هاي حبكة أما سيديك أغانيسا سبيسيفيكيشن أما مواصفات كمبيوتر كذا مواصفات كمبيوتر اللي أقال هو شيء آت مهم إيه فور إكزامبل كمبيوتر قبط أديك واحد دونيسا كمبيوتر كان إن آت إي بي سيت أما كمبيوتر كان إن آت قلب أسو إي بي سيت مروح هذا كهلاوي رامك كهلاوي كيبل كهلاوي واحد دونيسا أنا قلب أسو إي بي سيت دكانة تقدر واحد هذا أوكي لابتوب أنا قوا لابتوب كيجا مروحنا إنه إيوه دونا حقرأ أنا أوكي لابتوب هذا موديل كيسوى محي هذا له توشيبا أما اتش بي أما لينوفا أما شركة أعتقد أو استعمالي ست مركا مقع كده جاوبكم من قناة مركا كمبيوتر كموديل كيس إن له قادنه وشيء مهم أو كمية مواصفات الكمبيوتر ك مركا ترى هذا مواصفات كمبيوتر وحكمية بايوس وحكمية رام وحكمية كمبيوتر كذا حقوق شقينا أو حقوق شقينا أو بروسيس كمبيوتر كذا حقوق شقينا سيستم ما صوتين إلى بيت با ما أفرتن إياه ملحني أفر بيت با marka intaas dhan iyo in ka badan insha Allah waxaan ku ogaanaynaa saddexda qodob aan hadda idin tusinayo aad ku ogaan kartid muwasafaadka computerkaada intaas in ka badan insha Allah waa is arki doonaa hadalka dheereenin darsiga aan bilaano wabillahi tawfiiq kusoo dhawaada walaalayaal sharaxii marka insha Allah saddexda qodob aan isla wada arkaynaa qodobaheen ugu horeeyo computerkan aadayna markaan computerka aadno mouse waxaan taabanaynaa dhinaca midiga waxaan usoo degaynaa ilaa meesha ugu hooseyso xaggan waxaan soo baxaa information ama macluumaad oo muwasafaad computerkeena ku saabsan oo laakiin aad u badnayn processka ramka iyo systemka ku shaqeynaya computerkeena oo soo saara iyo computerka userka isticmaalayo iyo numberka oo windowska iyo waxaan isticmaalay aniga windows 8.1 intaan adiga information uu soo saara iyo sharikada computerka aan isticmaalayo adiga macluumaad aad u badan ima siinaa laakiin macluumaadka oo muhiimka ah xaggan waan ka helaa marka tan waa qodobaheena ugu horeeya hadda doonaysid inaad ogaatid muwasafaadka computerkaada marka intaan sameynaysaa intaan ku soo bixayso insha Allah muwasafaadkaada arkaysaa midda kale windows kan aadaynaa run aan ku dhufanaynaa waxaan qoraynaa dxdiag enter inaan sugayna waxaan soo baxaa marka waatan marka xaggan muwasafaadka oo kaamil u siinaa oo adigadan oo isku nidaamaysan computerka maanta taariikhdeeda computerka magaciisa windows aan isticmaalayo luqadda computerka ugu degsan sharikada computerka modelka computerka bioskiisa processkiisa ramkiisa ama memorygiisa iyo pageka oo isticmaalaya iyo display hada doonaysid inaad aadid dhalada computerkaada macluumaadkeeda dhan waa kon marka codka iyo intaas oo in ka badan marka tani waa qodobkii labaad hada doonaysiin in muwasafaadka computerkaada ogaatid aad doonaysid insha Allah midka saddexaad aan aadayno waxaan qoraynaa MSINFO 32 waxaad taaban kartaa adiga Windows R oo ku soo bixaysa calaamadan qasab ma inaad tagtid xaggan oo ranta waxaad taaban kartaa Windows R marka inta markaa qortid okay taabanaysaa waxa ku soo baxaa informationkii aan helnay in ka sii badan oo ka sii faahfaahsan marka saddexda qodob walba tan kale way ka sii fiican tahay macluumaadka badan ay ku siinaysaa hada doonaysid xaggan aad fikraysaa hadurkeeda marka macluumooyin in ka sii badan mid walba taada ka sii badan uu ku siina insha Allah sharaxina xaggan maanta ku arkaa in la wada faa'iideystay aan jeclahay hada su'aal qabtiin ama wax fahmin insha Allah waa soo qoro kartiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه درس دنبه